faarax waxaan joogaa degmada Taleex waxa weeye halkan aynu taaganahay hadda waa qudbigii Cabdulla Xasan qudbiga halkaasaan waa sayidka aabihii dakharada iyo nabraha idinka muuqda waa meeshii uu la dhacay madaafiicda uu la dhacay Ingiriisku 1919 bishii Febraayo 7deedii iyo 6deediiba waa la yiraahdaa xilligaas ayay ahayd markii uu burburiyay uu ku xansuuqay Ingiriisku dadka uu ku xansuuqay waxa la oran karayaa maalinta meesha tan waxa ku baxay dad gaaraya ilaa iyo 2,000 oo qof baa ku dhintay maalinta meeshtan كل ميلاد waxa weeye gobi taariikhiga ahaa sida aad garanaysaan badqimada Taleex ina Cabdulla Xasan Sayyid Cabdulla Xasan marka saddexdan qudbi oo idin muuqda waxa dareemi karaysan inay ahaayeen markii sayidku halka ka kacay diyaaradu ay duqeynaysay inay ahaayeen meelo maxaan ku rahdaa qabyo ah waana ka muuqata qabyadii hada sida kan oo kale ee waad aragtaan koofiyadaas inay go'an tahay ka iyo kuwa kale waa dhameystiran yihiin kan kale waa qabrigii Caraseed sayidka hooyadii weeye isla dhul bahantaa baa ahayd oo cali gari ah ina Caraseed baa la oran jiray marka iyadana waad aragtaan dakharka iyo nabarka ku yaala waa maalintii uu marfaca ku dhuftay haddaynu sii dhaafno u gudubno kuwan kale waa saddexdan qabyada ah iyo midka afraad ee kale saddexda tan waxa weeye saddex sheekh oo xarunta deganaa weeye oo marka iyaguna halka dadka quraanka u dhigi jiray oo ku dhintay waad arkaysan qabyada waa ka dareemi karaysan qabyada ay yihiin waa ka dareemaysaa kan afraad ee goshan cilada ku yaala isaguna waxa weeye qabrigii ku aasay sayidka marwadiisi maryama waa tuulaha muslim hooyadii bay ahayd meel ay joogtay ilaahu maryama loogu sahal maalig baa tahay iyo faras uu jeclaa faraska meesh ku aasan dhow dimeer baa la dhahaa islaanta ay wada aasan yihiin maryama la yiraahdaa xaaski sayidka ahayd qabriga qodan waxa weeye dad baa oo magaalada Koyto ku yimaada oo meelaha gobolada ay ka yimaado dad wadaan baa wax lagu yiraahdaa dahabiye iyo waxba ku jira dafnul makhazin wax la yiraahdo sida taariikhii hore waxyaalahaas ku jira yiraahdeen marka waa lagu qabtay iyagoo qoday laakiin hadda cidna looma ogola waxa adarkaysid wax dhagax lagama qaadi karo sida wax cid iman karto soo booqan karto oo cid lagu arko waa dadku waa ku soo yaacayaan qudbiyadu waxa weeye waa 6 weeye waa 6 qudbi labo waa waalidkii hooyadii aabihii saddex waa saddex sheekh midna waxa weeye faraskii iyo haweenadiisii uu qabay maryama haweenduba xaaskiisii maryama waxa oo dhan wax aad ku arkaysid Taleex iyo taariikhiga waxa injineerka ahaa Turki laakiin de gacanta dad Soomaaliya lahaa oo la tababaray oo loo tababaray dhismaha kan Cabdulla wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn buu ku leeyahay waxa la oran karaa waa aabihii taariikhda la yiraahdaa aabihii taariikhda la dhahaa aabihii daraawiish baa la yiraahdaa taariikh weyn buu ku leeyahay waxa la yiraahdaa dadku waxay sheegaan sayidka talada uu ku qabsado wuxuu yiri kada dadka aad ma fahansanay dibay la tahay isagu sida sayidku jihaadka iyo ma taqaana halganku ku jiray marka isagu nin naxariis badan buu ahaa odaygu wuxuu yiri baalika kada dilkan iyo dadka kada sayidku marka ka dayn waayo waxa la igu yiri ilaahay buu wuxuu weydiistay ilaahay inuu adduunku ku kala kaxeeyo isaga iyo wiilkiisa dabadna isaga baa dhintay ilaahay uu ka aqbalay odaygii baa dhintay waa sida oday fiican buu ahaa aan de halgankan uu sayidku jiro isagu marka raalli ku ahayn in de yani dadka sidan loo leynayo dadkana gaala laga caydinay dadka gaala laga celinay iimaanka lagu leynay dadka iimaanka lagu dilay lama oran karo iyo dad dembi ma ahayn halkan wuxuu ugu yimid dhulkan inuu joogno nin 9 naagood qabo anaga hadda reerka iyaga 9 qaba 9 buu ugu yimid halkan isku reer baan hayaa aniga hadda awoow igu beegay ninkii aakhirkii ugu dambeeyay waxa weeye qulaca soo maaragtid qulaca halka inooga muuqda ayuu ninkii ku dhintay lama dilin waxa weeye cunadii baa laga jaray
cadaabkeedii waxa la mariyay ciqaabteedii baa la mariyay hawlihii uu sameeyay sagaalka naagood uu qabay maya kama xumi odayga waxaan arkaa odayga in iimaanka lagu dilaa waan arkaa mar labaad baan Soomaali waxaan ugu celinayaa mar labaad Soomaali halkaasay ku heshay qabriyada aad arkaysan qudbiyada aad arkaysan dhismayaasha aad arkaysan ee taleex bay xornimada iyo gobonnimada ku heshay xaqayagii aan ku lahayn Soomaalina kama aanan helin maalin walbana waxa ognahay Ingiriisku inuusan magdhow bixin laakiin uu bixiyo mashaariic uu bixiyo mashaariicdii dadaan xaq u lahayn baa qaata waxa gubaya Soomaali waxa gubaya xaqii taleex baa gubaya hadday rabto Soomaali inay degto xaqii taleex iska soo celiso nimanka madaxdeena federaalka si fiican baan ula hadlanaa farmaajo iyo khayre waxaan leenahay meesha weeye meesha aynu wax ku noqonay haylaawine wala wax ka qabataan haddana abaaraha ka jira dhibaatooyin baa ka jirta dadkeedii tacluus baa haysa dispute area nala ku magacaabay wali wax dhod baan saaran maamul xataa si caadi aan uga tirsanay ma jirto waxa la yiraahdo dispute area dhulka lagu murasan yahay baa la yiraahdaa waxaan ugu baaqayaa dadka diaspora ka soo jeeda Soomaalinimada sheeganaya in ay rehabilitation ku sameeyaan dhismayn lagu sameeyo la sameeyo waxyaalaha meelaha taariikhiga ah ee caalamka la midka ay leeyihiin in loo sameeyo in la naashnaasho oo la ilaaliyo oo la nadaafidiyo ma garanaysaa nidaamka meelaha taariikhiga loola dhaqmo saas oo kale in loola dhaqmayaan jecel